dadkii horena waxay dhahaan dad waa dadkii hore adiga ahaan dadkii hore iyo dadka maantay keebaa wanaagsan oo fiican dadka hore maxaa kulan wacan oo wanaagsan dhammaan inta ku xiran channelka walaalaha muqdisho mar labaad waxaan leeyahay jimco wanaagsan maanta waxaa marti noogu ah xafiiska walaalaha muqdisho artista weyn oo Soomaalida inta badan ay yaqaanaan Axmed Cumar Saciid oo ah artista weyn oo maanta aan ku martaqaadnay xafiiskeena si bulshada isaga ra'yigiisa ugu soo gudbiyo ku soo dhawaa Axmed ku dhawaa magacaaga oo saddexan bulshada magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cumar Saciid artista maanta waxaan runtii ku soo wacnay team walaalaha muqdisho hadaan nahay waxaan jecelnahay in bulshada u gudbino qof fariin u gudbin kara waxna u sheegi kara badana bulshada waxay isku qabsadaan waxyaabo badan oo dadkii hore iyo dadka maanta runtii dhalinyarada waxay badana dhahaan dadkii hore dadka damba ka fiican dadkii horena waxay dhahaan dad waa dadkii hore adiga ahaan dadkii hore iyo dadka maanta keebaa wanaagsan oo fiican dadka hore maxaa ku leedahay marka dadkii hore waxay ku fiican yihiin يعني wax walba macna ay soo mareen oo kuwan hadda oo arkeenin Sufyaan wax badan ay soo mareen oo xaq ahaada dhanka raaxada صح dhanka oo yani si walba xorinimo Sufyaan wax walba hore jiri okay dadkii hore iyo dadka hadda yaareen magaalsan kuwii hore ay magaala waa gartay waa kaas marka hadda adigu waxa fikirka waxa qabtaa dadkii hore inay wanaagsan yihiin maxaa oo noo tirin kartaa kaasi kaga wanaagsan yihiin dadkii hore aad dhihi kartaa jaceelka markiin kaaga soo qabto ko jaceel kan hadda dhacay iyo kii hore dhacay difference weyn ku jira dhaxdooda waxa u dhaxayn kara waxa u dhaxayna anaga ebel rafaadan ku helaynin naagta ajeceshiin sabab jaceelka aad u dhib badnaa jiray sabab naagtii waxa way arageeda horta oo nagu adkaay inaad aragtaan arageeda ba dibna uu ahaa jiray waa gartay naagti inaad si xunko meel u aadid inta u soo martid urafaadid dad hadda waa iyada oo la xiriiri karo inaad heshid صح qofkaas adeeg u soo dirtid telefoon male waqtigaas waa gartay hadda laakiin waxaaba sahal aan naqdiba yani shukaansigiib Sufyaan telefoonadana soo wada baxay telefoonkii hadda waa wax kasta fududeeyay marka waxa leedahay jaceelka wijigeeda aad arkayad telefoonada socdaan marka hadda waxa leedahay jaceelkii hore ahay waa loo silci jiray kan laakiin hadda fudeed waaye maanta baranay caawa leefan cawadaasi asiirtada isku arkoosin marka ma leedahay dadka way wanaagsan yihiin tiknoolajiyadan oo sii horumarayso waxaan ku dheelay mis leedahay mas dad ahaanaba waxa leedahay dadka hore fiican dad hore la fiican aan saasan qabaa qabtaa okay balka waran dadkan hadda waa loo shaqeeyay Sufyaan wixii dhan teknoolajiya oo fududeysay okay waxaan ka rabaa noloshii hore markii asxaab ahaan team ahaan nabad ahaan iyo markaa fiirisid maanta bulshada siday u nool yihiin iwaagi hore siday u noolaan jireen maxaa faqriga u dhaxeeyo wax weyn haye isjacayl jiri hore waagi hore Sufyaan dhalinyartaaba isjacleed hadda wax is aaminaya baa taa jirin Sufyaan haye ma kala fiicno aad weyn taas waa isjaclaa kalsoonida jirta ninka saaxibkaaga gurigiina taa habeenkii waa seexsay Sufyaan asigana kooda tagaysi waa seexanays Sufyaan hadda waxa way aaminkaasa ba hadda jirin macnaha bulshada waa la kala cabsaa waqtigaas okay dhalinyaro ahaan sida isugu xirnaan jireen iyo maanta waxa leedahay waxa u dhaxeeyo faqri weyn Sufyaan okay taas waa gartay guurka oo hadda xilligan waxa batay horta laba shay ayaa badatay in furiinkii uu aad u batay waxa arkaysaa maanta aroos oo runtii la soo hambaleynayo laga qayb galaya xafladii muddo yar kadib waa la kala tagay wax yaraas naqaa aad arkaysaa waxa kale oo batay odayaashii hore oo gabdhaha yar guursanayo oo dhalinyarada ay leeyihiin odayaashii dhunta noogu dhagan oo guurkii maanta ka naga wareerinayo marka koow waxa iga jawaabtaa su'aasha furiinkan badan oo hadda jiro marka khibradaada ka faa'iideysano waagi hore saan ma jiri jirtay furiinkan haddana maxaa keenay markaad adiga fiiriso maya waqtigaas waa kaaga hadli aniga waqti oo fiican ahay ninka dhalinyarada waxaa laga yaabaa taa waalidkiisa inay aroosistaan
أروسين كرا صفيان أنا تا أي بيلا هايان صح هذا وحوا وحي معنا كيارس ناخذ صح قف كنينك عبسي بجليش صفيان والله أصلها ورسي وحوجه هيش ناقتان صح ناقتي مركيو وكزون يرى وسوق عنقلي إذا اسكو أروس ناقتي wax badan min iswada okuzoonkii dhamaana sheekada saas ay ku dhamaayeen marka misleedahay ninka oo guursaday miya guurka inuu burburo hadda xilligan inuu guurka burburo ma dumarkaas sabab u ah masarga sabab u ah marka fiirisid wallahi labada dhanba waa naqa karaan sababta ninkan waa ka naqiyay naagtana waa ka naqata ninka say ugu noqon kartaa ninka waxa uu naqanay بريزنبي نكان ولا حوكو قالي ناكتان صوبة حاستو صح أو قالي جدالس وحلقان نقضي سفيان مركا نكي سيسكو وضع مودي فرحة دي وابا جوانتاي بركي نكان وحس في لها هذه ناكتان وبيلا كرتا وعياشة كرتا سفيان مركا دتكي هورا ما اهانساس دتكي هورا نينكا مركي هو لاس بورتا ناك أصلي يجري oo wax uu haysto oo waxaas helaha ama waalidkiisa oo shaqo weyn oo qabtay Sufyaan markaas dooy loo jeclaada oo loo jeclaa jiray in naag noqdo darsado Sufyaan waa noqtiya markaan waa noo shaqeysay naag ku gudareynay ilaahay waalidka Sufyaan qofkii isku filan ha oo jaa shaqo haasto mushaar qaato marka waxa leedahay ragga iyo dumarka xilligan jiray ii ka sabab waa guryahooda burburaya shiida jira hada dhaqaalaha sabab waa dhaqaala male hada ha okay dhaqaala isku cishi karaan male marka waxa hadalkaaga khibradaada aan ka faa'iideynaa in guurka burburaya xilligan uu sabab u yahay dhaqaale xumada la keenay maana okay waxaan rabaa waayahan waxa aad u soo badatay in guurka odayaasha waaweyn oo duqyaasha ay guursanayaan gabdhaha 18 jirka 20 jirka oo aad arkayso oday 78 sano jir ah oo gabar yar dhaqaale la keenaa marka odayaashaas maxaa kula talin lahayd adi ahaan ama dhalinyaradan qeylinaay maxaa kula talin odayaasha qaar markaa wareysato waxay guleeyeen dhalinyaradu waxay qaban waayeen au qabanona sababtoo in nin weyn leh wax dhaqi kara naag ninka weyn dhaqa waa gartay nin oo hadda iida camal am shimay is dhaqayaan okay misleedahay gabar 20 jir ah oday 80 jir ah wiilka 20 jirka waxa uu siin karo farxadda uu siin karo ma siin karo ka weyn asiya ka weyn macnaa ninka hortiisa la soo weynayo adi 78 jir anjiro waa aragnimo wax oo qaada waxaas asiga ka seenin hadda cunugeyga oo aan ka saaya jira marka hadda waxa leedahay way aragnimo ku direeyay aan ku dilaaha waaba ka nacsa ano agteeda gaarinay afaanba oo aan ku waabina hadin dhax galna waaba ka darantahay marka hadda waxa leedahay 20 jir iyo 18 jir anaga ka roon maanta anaga dhaqayna nag warkaasni waa ninka weena ku dhaqa macnaa naga maqlino la dhahaysas waxaas war iska war le ma aha hadda waxa leedahay dhalinyarada waxay qaban karin odayaasha qabanayaan wala huwa taas waa gartay okay waa yahay noloshu isbedeshay in badan dadkii hore markaad wareysato waxayna leeyihiin xilliga ay ku soo aadeen xilli nolol jirto maba ahaba macnaa waaba cadaaye ma nolol jirtaasan nolol miya okay maxaad ereygaas noo dhehaysiin oo aan noo muujin kartiin waxaan idin dhaheynaa ininka nabad dhan boorta ma soo arkin wax la dhahayo ininka jaa waxaa la ku soo gaarteen waqti oo burburkan iyo rabshadan socoto waa gartay laakiin anaga waqtigaaya habeen lix saacan macnaa aan la bisayni aad magaalo gelaysay curubo iyo jubbo iyo raaxa la aaday tumasho صح 9 saac habeenkii alag soo naqaa صح kaliga ama lama qaf oo saaxiibtiin ama naagaad wadata xagga ka soo heshay صح waa soo socotiin baakana xaafada ala soo galooya saasa aan soo martay warkaagi waan fahanay hadda warkaagi wuxuu ku soo arooray in noloshii hore nolol lahayd yaa heli karaa taas tan maya tan waa hay wax oo isleedahay qalbi jabsana hadda way ku fiican yihiin majira adiga isleedahay dhalinyarada hadda soo baxday wallahi waxaase kuwaas hore haysanin ee kana maanta haystaan waxa ilaahay u sahli ayaga teknolojiyada oo foorta naqati maanta ay la kulmeen safiican wax barashadoodii macnaa saasa fududaatay wax barashadii hore tan maanta tana fiican laakiin dadka qaar waxay ku leeyihiin wax barasho ma jirto maanta waagi hore maanta fiican maanta wax walba heli kartaa oo awooda safiican safiican jaamacad oo Mareykan ku taala inta macnaa darsi oo qaadanay online ku dhiganay oo la helay waagi hore ma jirin male maalintii hore macnaa
ninka dibadda aadaaba nin oo dhif waa nimo nin mataay ma bixin mala si fudud ma lagu aadeen ha okay waayahay teamka walaalaha Muqdisho maxaad leedahay hadda wallahi waxaan leeyahay inaan balan qaada u sameynaa oo weyn waa gartay waxaan u balan qaadaa inaan hadii ahaan aan ugu sameeyo macnaa boor la yaabo صح walaalaha Muqdisho si fiican sida hadda aad arkaysiin macnaa calanka Soomaali صح meesha asku sabirin yahay gada meeshiisaan baan rabaa inaan aarta oo qofkii arkaba yani dhulka dhacay oo la yaabayo inaan ku sameeyo doono okay team walaalaha Muqdisho wad arkaysaan waxaan noo balan qaaday boor weyn oo gacantiisa artistaha weyn oo ku soo suubin doono insha Allah anagana waa ka gudoomi doonaa insha Allah waxaan idinka tagayaa mar walba waxa idin soo gudbin doonaa runtii muuqaalo qurux badan oo aad runtii wax badan ka ogaan doontaa insha Allah markuu hadiidan gudoonsiinayo oo noo keeni doono boorka wareysi kale la yeelan doonaa iyo qaabka farshaxanka oo ku bartay qaabka noloshiisa farshaxanka ee tahay waxaad ka dhigan doonaa wareysigaas qaybta dambe oo runtii uu noogu talagalay oo boorka weyn noo soo suubin doona marka aragtaan boorka quruxdiisa ayaan wareysigaasi ka qaadi doonaa okay way waa maadsan tahay aad baad ugu mahadcelinayna qaabka quruxda badan ee runtii aad noogu gudoontay inaan ku soo casuulno wad ku maadsan tahay insha Allah okay qeyr badan iyo caafimaad aan rajeynayna